dad badan ayaa dhibaatooyin ku qabo xeerta caloosha gasho sida darteed ciwaanka ugu horeeya ee maanta aan xooga saari doono wuxuu noqon doonaa dufinta caloosha ama xeerta caloosha gasho sidee lagu daaweeyaa goormay timaadaa maxaana keeno cudur noocee ayaa la xiriiro markaan soo qaadano goormee ayay timaadaa dufinta caloosha ama xeerta caloosha gasho goormay timaadaa waxay timaadaa markii aan isticmaalno raashin uu ku badan yahay carbska wax loo yaqaano ama carbohydrates wax loo yaqaano sida taanada sida cabitaanada sida raashinka sida raashinka dhaxgiliska raashinka tooska hilibka shaaxa hadaba waxaan ognahay wuxuu jirku isku bedeli doonaa laba qaab jirka wuxuu isku bedeli doonaa qaabkii ahaa beer body oo ah in qof calool aan lahayn daban aan lahayn horeyna u weyn qaaq dambana u yar lugaha u yar qaabkaas waxaa la dhahaa beer body wuxuu isku bedelayaa apple body oo ah qof dhaxda ka weyn caloosha weyn oo markaas sida tufaax u sameeysan ayuu noqonayaa qodobka xiga oo ku xiga waxay noqonaysaa cudurrada raaco ama cudurrada la socdo belly fat dufinta caloosha gasho cudurrada la socdo waa cudurrada sida aan wada ognahayba sida baaritaano badan lagu ogaaday dufinta caloosha waxay keentaa xanuunadan soo socdo sida stroke ama xinjirta gasha maskaxda xanuunka labaad waxa waaye diabeteska ama xanuunka sokorta ku dhacda dadka hypertension oo dhiigkarka ah heart diseases cudurrada wadnaha ku dhaco kulligood waxa keeno belly fat marka dadka caloosha cayilan leh cudurrada wadnaha ku dhaco dhan waxa weeyaan sababteed waxay noqonaysaa belly fatka ay noqonaysaa sidee u saameysaa caloosha dufinta taalo markaaga sidee u saameysaa caafimaadka qofka waxa la ogaaday scientists-yaashan ay ogaadeen in dufinta caloosha taalo ay tahay active cells ama cells shaqeynaya waaye cells meel iska fadhiyo oo kayd bis ma ahan waxa la ogaaday dufinada meelaha kale yaalo iyo dufinta caloosha ku taalo tan caloosha taalo inay tahay active oo ay shaqeysanayso oo ay soo daynayso cytokines wax loo yaqaan cytokines waa chemicals oo maartay sida tumor necrosis factor iyo interleukin 6 labadaas caan ku tahay cytokinada soo dayso waa fat cell ka soo daynaya marka kiimikooyinkan sida ognahay waxay saameeyaan hormoonada kale waxayna sababaan hormonal disturbance markay keenaan waxyaabaha ay qasayaan waxa ugu horeeyo insulin sensitivity oo ah ay hoos u dhigayaan insulintii shaqadeeda ay hoos u dhigayaan sidoo kale blood pulse wax loo yaqaano ama pulsationka shaqada dhiig smoothness u socday way saameynayaan sidoo kale xinjirta dhiigana way saameynayaan saddexdaas qodob ay saameeyaan markay yimaadaan cytokineska sidee lagu baabi'iyaa xeerta gasha caloosha sidaan wada ognahayba xeerta caloosha ayaa waxay tahay khatar aad u daran taasoo dhibaato ku hayso bulshada qaar badan oo kamid ah marka si loo baabi'iyo waxaad u baahan tahay laba qodob oo aad muhiim u ah oo asaasi ah qodob ayaa waxay muhiim u yihiin in la gubo dufinta caloosha ku kaydsan oo ugu horeeyo exercise-ka ama jimicsiga waa inuu ahaadaa intermittent mid oo maaragtay waqti u kala dhaxeeyo aad ku celiso waa inuu ahaadaa qodobka labaadna waxa waaye healthy diet oo ah raashin caafimaad leh waa raashin ku yar yahay carbohydrate ku yar yahay ama sokorta ku yar tahay sidoo kale waa raashin uu ku badan yahay fitamiinada iyo macaadinta sida khudaarta oo kale marka asoo faahfaahsan insha Allah dib ayaan uga hadli doonaa ciwaanada xiga ee muhiimka ah ee aan duubi doono waxaa kamid ah sida loo baabi'iyo dufinta caloosha gasho hadaba si gaarsii dadka kale kuna soo biir channelkeena waad maasan tahay haddii aad share garayso oo aad dad kale u gaarsiiso inaad share garaysana aad baa ugu maasan tahay